السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عمران الهادي ما أنت دونها أحير فيسبوك إنه واحد يجي فايدة تتبدل محاركة لهايان بروفيلكيga sawirka ii saaran waxaan doonayaa ani kaliya bis inay u akaado oo qofka loo dagsan karin friendiska oo ani ugu jiro waxaan doonayaa ani kaliya inaan arko oo qofka loosan arki karin. marka waa way iska fudud, waxa waaye dadku waxay umaleynayaan wax adag inuu yahay. waygaas haddaan qaado doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo, marka inay ila socotaan rajeynaa itusi taabsiyaan iyo tusaya bal arkaada dhanka midig mujeeda oo saddexda falar rigirigada leh aad jogsiinaysaa. kadib waxaad dooranaysaa settingkiis mujeeda meesha ku qoran tahay oo qarsome laaga dhowti juga siinaysaa setting preferences dhowti setting ka dooranaysaa cabaara sugaysaa kasa soo kacay karaad bixaysaa. kadib meel preferences meel ku qoran tahay settingkiis mujeeda juga siinaysaa. waa kasa marka intuu ku qoran yahay who can see your friends list ina ya doonaysaa marka asxaabtaada inay arkaan oo friends ku leh inay aragto. haddana only me uu yahay aad aragtid public friends except inta baa ka dhigi kartaa, laakiin muhiimadda waxay tahay haddaan rabno inaan barano only me kaliya ani kaliya inaan arko bis asxaabta ani ugu jirto kaliya inaan arko oosan shakhsi kale u arkin. only me ka dooranaysaa kadib beega leedahay waa kasa only me ku noqonaa profilka ku saaray sawirka ku saaran. do you want to search mujeeda meesha ku qoran tahay aad jogsiinaysaa. haddani way xiran soo mujeedid adiga markaas saan uu ku yahay waad xiranaysaa le kaliya bis disable leedahay bis profilka sawirka ku saaran adiga kaliya markaas gaar ku noqonaya. waxaan filayaa inaad aad ugu dharagteen waxaad maleynaysaan inuu aad u adag yahay, inuu aad u basiid u yahay. waad aragteen oo maleynaa insha allah hadduu ilaahay karaal noqdo markasta waan rajeynayaa wax badan ani aqaano inaan iisoo gudbiyo idigana aad ii faa'iidaan hadduu ilaahay karaal noqdo. insha allah khayr caafimaad ayaan rajeynaa hadduu ilaahay karaal noqdo. جزاك الله خيرا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.